wasmada iyaaba jecelba macnaha in macnaha laga bixinin iyaaba raaxada jecelba iyaaba kugu dhegaya ninkii yaaba rag yaaba tabar aan hayninba haddaad gurigaysa isla markiiba guskii hore oga dalka leeyahay macnaha gabar macnaha iyaga dhanba waa iska bislaadeenba gabar ma aha 20 jir markaan aha gabar ilaa asbuuc 2 bil 3 bil 4 bil oo aan haystay arkay oo hadda sajil laakiin aniga waxaan soo arkay walaa isaaqa nagaha isaaqa ugu fiican xagga raaxada la dhaha jirkoodii macnaha dhaqaalahoodii xagga isaaqa aad ugu raaxa ugu macaan badan wuxuu arkaa gabadhiyo saas macnaha duleelkeeda iska leh jaa waxaa waaye macnaha mashaakilkana hayso waaye bismillahi rahmaani rahiim waxaa idin sheegayaa ummadda soomaaliyeed oo waddanka inay joogto horta gabdhihii soomaaliyeed waa halaabeen sababtoo waxaa waaye kuwii hore iyo kuwa hadda isma laha kuwii hore waxaan arki jirnay gabdhihii hore waxaan arki jirnay hataa haddii aad guursato gabarnimo aad ku guursato yaa bil ama 3 bil 5 bil 6 bil macnaha gabarnimadeeda macnaha original ay ahayd laakiin kuwaan hadda jooga soomaalida jaa ever waay mobilada kan weeyaan la arkay iyaga isku mashquulay macnaha barwaaqada ka badati haddaad gurigaysa isla markiiba guskii hore oga dalka leeyahay macnaha gabar macnaha iyaga dhanba waa iska bislaadeenba gabar ma aha wallaahi bila dhowr naagaan soo guursaday oo horumar macnaha aad raaxada waa soo arkay goodhe laakiin kuwaan hadda joogaan xamar ever waay macnaha waa jilacsan yihiin macnaha mustaqbalkoodana isku cayaar haddana mobilkan weyn ay fiirsanayaan oo ku jirto macnaha video waa ku jiraan nooc kasta ay sheegsanayaan iyaga ismaamulayaba jaa hadda aawi gabarnimadii ninkii lacag oo haysta wuxuu leeyahay aroosa lagu guri baawara loo guri alle marka guriga geysanay ninkii jaa wuxuu arkaa wixii oo dalaq iska dhaheenba maanta taas macnaha aad aan ugu xumay gabdhaha macnaha Soomaaliyeed oo barwaaqada iyo bashbashka ka batay iran wada bajaqe waxaan xasuustaa 20 jir markaan ah gabadh ilaa asbuuc 2 bil 3 bil 4 bil oo aan haystay arkay oo hadda sajil oo haddii mar aan u tagay mar labaad ma yeeleyna kuwa hadda laakiin iyaga waxa ku dhahayaanba iyaga raaxada jecelba iyaga kugu dhegaya ninkii yaaba rag yaaba tabar aan hayninba iyaga kugu dhegaya oo macnaha raaxada iyaga rababa jaa maxaa keenay duruufti macnaha ragii macnaha jaa tabardara hays naagii hadda jaa nin aaga sabo haddana waa isqurxisay jaa ever way wasmada iyaga jecelba macnaha in macnaha laga bixinin ma gasti laakiin aniga waxaan soo arkay walaa isaaqa nagaha isaaqa ugu fiican xagga raaxada la dhaha jirkoodii macnaha dhaqaalahoodii xagga isaaqa aad ugu raaxa ugu macaan badan waxaad arkaysaa gabar iskool dhiganaysa oo 18 jir ama 15 jir iskoolka jitoorka inta meeshii geyso wuxuu leeyahay macnaha anaa ku barmoosina jaamacadii wuxuu leeyahay anaa ku barmoosina macnaha imtixaanka saambayba jaa asaaba baashalinaya inta sii daayay gabdhihii macnaha oo gabadhii cishaa marka gabadhii ciddooda familkeeda waxa way haystaa inay gabar tahay jaa idii macnaha jaa hoosna ebrey ka tahay ninka marka loo guri hataa qarash oo dhiibo hataa si ma hadli karo waa xishoona ninkii macnaha naagta macnaha ma dhigi kar eber waaye maxaa saan ku dhahay ma dhahay macnaha waa u been sheegaysaa inta asbuucaas macnaha waa u macaanaynay jaa hoostiina eber waaye macalinkiina waa u leeyahay macnaha waa ku imtixaankiina ku barmoosinayaa wax qaraafaad iyo been ku akrinaa gabadhi jaa haddii hadla gabar macnaha lu dhahay waa ku barmoosinaa jaamacadii horumaraan ku gaarsinaa haddii lahayna jaa hoosteeda macalinkii ka faa'idaysaa marka dhibaatada Soomaaliya haysta taas waaye gabdhihii Soomaaliya waa finish wax faa'iido ay leeyihiin male akh mustaqbalkooda ku cayaareen waqtiyaan ahay jaa raaxada ka badati macnaha waxaa idin leeyahay kalo gabdhaha sunnada loo gudayo hala dhaafo macnaha sunnada dhib ay leedahay hal saas loo taabtay jaa gabadhii idaaba iskala dhigaysaba ma garatay marka waxaan jeclaa inaan fircoon loo gudo macnaha waxaan arkay macnaha gabdho oo hadda gurigoodana gabar ay ka ahaayeen oo macnaha iskool lagu ogaa hataa oo waxaa arkay hotelada inta la geystay oo eber laga dhigi niman macnaha soo doonteen oo qurbaha niman dibadda ka jireen soo doonteen guur ahaan soo doonteen markay qarash ka bixiyeen hooyo aabbo qarashkii siiyeen oo markay ninka guriga hadda u geystay arooskii baaburadii wixii markii guriga la geeyeyba jaa wuxuu arkaa gabadhiyo saas macnaha duleelkeeda iska leh jaa waxaa waaye macnaha mashaakilkana hayso waaye gabdhihii ninkan lacag oo bixiyey dibadda ka imaaday qarash oo bixiyey gabadhii markii guriga loo geeyo oo hooyo aabbana ay ku ogyihiin inay gabar sajil ay tahay iyadina macnaha jaa rag kala ka faa'iidaystay hotelay geysanayaan waxay qaadanayaan waxyaalo hijaab ay qaadanayaan hotelkii ay ku raaxaysanayaan gabarna ma tahay ninka dibadda ka imaadina markuu arooso oo lacag qarash bixiyo guri hadduu geystina jaa wuxuu arkaa wixii oo macnaha gacanta iska gelaysa dalaq marka waxaan leeyahay gabdhihii Soomaaliyeed waa halaabeen mustaqbalkooda Allah hagaajiyo waxaan leeyahay waalidiinta ay dhalaan waa inaan gabdhaha hooyo ayaa control karta
gabdhaha waa inay hooyo kontarooshaa aabbo ma kontarooli kara walaalna ma kontarooli karo macnaha waxaa kontarooli karo habartu waxaa la rabaa galaaska markay ka imaato inay gabadha dhahdo naayaa soo galo qolka naayaa waa ku fiirinaya inay dhahdaa la rabaa ay baarto hooyada inay macnaha dulasho inay kala ogaataa la rabaa maahayn gabdhihii macnaha haddaa faraha laga qaado hooyoy intaa meeshan aadana hooyo abti eedaan soo salaamay abtiya soo salaamay hadday dhahaan jaa leen kale ka faa'iidaysanayaan raggaa macnaha balansanayaan lacag dollar $200 la siinaa jaa iyadii macnaha raaxadaas ay u bogeysa ama xataa waxaa laga yaabaa keliya in looga daro ay kala dhacdayda dhanba oo si raba looga adeegsado macnaha waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed gabarnimadooda waa ku dhacayaareen intaasaa warkayga ku dhameeyey kuwii hore waxaan ogahay baashaan magaleeda maaragtay oo gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ka baxda masigida maaragtay haddii hataa la geliyo yaa inta yaroo kaadada yar jabnaqda iska daay waxaan arkay hataa dhulka markay kaadadii ay u dhiiso dhulka dhan waa duleelinaysa gabadha markay gabarnimadeeda kuwan waxaaba gacantii yaaba deed sana dil dhahaba jaa waaba sii goloysaaba war waxaan leeyahay niyo ilaahu rabbi raxmaano war gabdhahayna soomaaliya allah noo toosiye waa halaaween hooyo waa inay kontarooshaa waa in macnaha gabdhaha la kontaroola iskoolka hadday ka imaata hataa iskoolkay sheegaysa macalinka beenay ka sheegaysaa waxaa laga yaabaa hotel inay ku raaxaysanaysa marka gabdhaha soomaaliyeed macnaha duruufna waa haysaa ninkaana lacag haysaa macnaha waa ku raaxaysaa ciddii familkiin waxay leeyihin gabar waay weligeed lama gursanin gabarnimay ku bisaatay nina yurubka imaanaya anaa kugu dar ama abti ama ilmaayar hadday yihiin hataa ama ilmeedi abti hadday yihiin hadday u guursada hataa markuu arka ninkii asaaba naxnaaya maxaa le meeshaan oo macnaha ceelka ninkii asaaba dis mural u naqanaya jaa marka inta ku dhameeyey macnaha